محمد وآله وصحبه وسلم marka hore ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'ala wax badan in siiyo nicmo oo ayna soo koobi karayn marka labaad iyaguna waxa mahadsan madaxda isu xilqaamay waajibkii ummadda ka saarnaa ay ballan qaadeen oo ay koow ka tahay nadaafadu waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahayna xilka idinku asturo waxaan anigu halkan u imi inaan dhiirigeliyo hawsha oo aynu muujinno inaanu kala harsanayn nadaafadda waddanka iyo wax kale horta ha joogaana dadku inay qurunka iska xadhaan iyo kudaafadda intaan horta horumar la samaynin waxa ka horeeya qofku waxa cudurka uu ka qaadayo mushkiladda agtiisa inuu xalliyo hadduu taa xallin waayo qurux kaleba ma jirtaba waxaan intaasi raacin lahaa islaamka ama diinteennu qur'aan iyo xadiidba waxay ka tiri nadaafadda wax yaroo ka mid ah diinteennu waa diinu nadaafa waa diinta nadaafadda oo markaad akhrido aayadaha ka warramaya nadaafadda iyo axaadiidta saxiixa ku soo arooray waxaa laga alifi karaa kutub baa laga alifi karaa waxa qur-aanka ilaahay uu ku xusay dadku inay nadiifiyaan jidhkooda maradooda iyo deegaankooda inuu ilaahay ku jeclaanayo waxaynu u soconnaana wuxuu ilaahay nagu jeclaanayaba inna allaha yuxibbu tawaabiina wa yuxibbu almutatahhiriin dadka toobadda keenana ilaahay wuu jecel yahay qalbigooda nadiifiya iyo kuwa deegaankooda nadiifiya ee dahaarada jecel wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam nadaafadaynu nadiifinayno deegaankeenna iyo jidhkeenna iyo dharkeenna iyo guryaheenna inay iimaanka ka mid tahay addahuuru shadruliimaan dahaaradu waa iimaanka barhkii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu xusay inuu ilaahay qofka ugu mahadnaqayo waa waxaynu halkan u nimi maanta uguna dembi dhaafayo inuu nadaafadda ka qayb qaato maxaa ka wanaagsan inuu ilaahay inoo mahadnaqo oo uu dembigeenna dhaafo wuxuu rasuulku xusay sala allahu calayhi wasallam waa xadiid saxiixa ninbaa wuxuu soo maray geed ama laan waddada taalla oo dadka dhibaya oo xeganaya meeshii buu ka qaaday sidaa imminka aynu laamaha iyo dhirta iyo qurunka u guraynoo kale markaasuu ilaahay u mahadnaqay fa shakara allaahu lahu faghafarahu ilaahay baa u dembi dhaafay oo u mahadnaqay wax weyn weeye dadku waxay laga yaabaa inay jecel yihiin ciday mudanahoo ay ixtiraamayaan inuu u mahadnaqo mahadnaqa ilaahay baa u weyn subxaana wa tacaala waxaa runtii walaalayaal aynu u tixgelinaynaa inay tahay sadaqa inaad maal bixiso waxa la mida inaad ummadda jidadkooda iyo deegaankooda iyo xashiishka ka nadiifiso waa sadaqa imaadatul adaa cani dariiqi sadaqa nebigu wuxuu leeyahay waddadoo la xaadho oo ummadda laga xaadho oonan cidba ku hadlayn waa sadaqo waa adoo lacag bixiye oo kale waxaa kaluu xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam iimaankeennu inuu kor ugu kacayo markaynu nadaafaddan ka qayb qaadanayno inuu iimaankeennu kobco wax weyn weeye waa salaaddii buu iimaanku ku kordhaa oo sadaqaduu ku kordhaa oo cibaadaduu ku kordhaa waxyaabuu ku kordhayana waxaa ka mid ah nadaafaddaa maanta aynu u taagannahay wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam iimaanku waa 7 qaybood buuli waxa u sarreeya ashahaadada waxa u hooseeya waddadoo nadaafadda laga sameeyo oo wixii qurunahee dadka dhibaya laga qaado haddaba haddii uu qofku ka qayb qaadan waayo taa oo sida dad badani ay sameeyaanba uu xashiishka ku soo tuuro waddada waxaan halkaa maraa iyagoo dumarka qaarkood intay xijaabka soo qaataan halkaa hoosta soo gashanaya xashiishkii gurigay ka soo qaaday halka ay maraysa ummaddu ay maraysa la isugu imanayana way dhigaysaa maalin dhexdaana waxaan ku uhi walaa xaggaad ka keentay gurigaygii bay tiri oo halkan aad maraysana ummaddii oo dhan baa isugu timid halkaasaaba kuu gaar ahayde maad gaadhigii kula sugtid markaa qofkii qalad buu fahamsan yahay wuxuu isleeyahay iska fogee laakiin nacdal buu sii doonanayaa wuxuu nebigu yidhi taqul malaacina 3 meelood ee nacdasha keena iska ilaaliya waa inaad ku saxarootaan ama ku kaadidaan waddada la marayo iyo halka ceelkee laga aroorayo iyo geedka la hadhsanayo dooxu waa meeshii quruxda badnayda la hadhsan lahaa ee lagu shiri lahaa berihii hore waa lagu shiri jiray sida halka imminka hoolalka la qurxiye lagu shiro ciiddaa niista ahee daadku maydhay baa lagu shiri jiray oo ahayd halkaa dee hoolka halkeedii oo kale inoogu jirtay marka haddaad ku saxarooto ama ku kaadida ama qurun dhigta buu nebigu leeyahy meesha ummaddu ay maraysa ama xooluhu ka aroorayaan ama geedka la fadhiisanaya nacdal baad mutaysanaysa ummaddii baa ku nacdalaysa markay qurunka arkaan markaa midna waxa ku kordhaya iimaankaagii oo sadaqay kuu noqonaysa oo ilaahay baa kugu jeclaanaya waa markaad waddada nadiifisa iyo deegaanka midna nacdal baad ku mutaysanaysaa iyo cadho ilaahay marka waxaynu leenahay arrintani ma aha arrin ijtimaaciya ma aha arrin iska caadiya laakiin waa arrin diina dadku inay isnadiifiyaan diinteennu si aa ogsoon tihiin
dahaarada waxay ka dhigtay wax waajiba cibaadooyinka qaarkood baan ansaxayninba ilaa la dahaaro qaato salaadu maxay ku ansaxdaa waa dahaaro qofkii markuu jinaaboodo waa dahaaro markay gabadhii dhiigii ka maydhanayso waa dahaara waxallo waxaasoo dhammi waxa ay ku lug leeyihiin qofka muslimkii waa qof nadiifa subxaanallahi ina almu'mina laa yanjus buu nebigu leeyahy ilaahay baa xumaan ka hufane qofka mu'minkii maaha qof qurun iyo nijaasi ay ka agdhowday haddii iminka wax kaa soo ururaan masaajidka haymanin baa lagu oo sigaarla tahay ama basal iyo tooniya u cunayso ummadda ka daabaalay jimcadii baa waajib laga dhigay inuu qofku isa soo nadiifiyo oo uu soo maydho isagoo carfayo udgoon u yimaado dhaqankeennu wuxuu ahaan jiray in subaxdii la wada xaadho guryaha oo dumarka aad aragtay iyagoo wada xaadhaya oo qurunka layska ilaaliyo qaxoontigii dhibaatooyinkuu keenay iyo salbiyaadkiis iyo saarfagtii bay ka mid noqotay waa nooc gunnimo ah ummaduhu markay jabaan ama qaxaan gunnimo badan baa ku timaadda markaa dadka qurunkii iska barkanaya iska dugsanaya waa arrin gobonnimo darraa marka waxaan leenahay walaalayaal dee kharalahaas iyo kol haddii madaxdii hormuud ay inoogu yihiin waxaan jeclaa weliba madaxda ka waaweyna dawladda dhexena inay yimaadaanoo tusaale ay u noqdaan waxaan anigu u taagnay inayn tusaale dadka u noqonno oo aanu wadaadkii noqonin ma masaajidkii la nadiifiye u tagee shaariciina yimaada waayo maalin walba waan maraynaa waa dariiqii kale ahaa la marayay marka madaxda dawladda dhexena waxaan kula talin lahaa in iyaguna isgarab taagaanoo ay tusaale dadka u noqdaan waxaan arkayay meelahan iminka markaan soo lugaynayo soo marayay dadku way xaadxaadhayeen waxaa la yidhaha annaasu calaa diini muluukihim dadku kolba waxay u taagan yihiin madaxdoodu siday yihiin oo kale markaa madaxdu hadday qurunka iska agbarbaraan iyaguna way isdhag dhigan doonaan hadday arkaan madaxdoo diidanna dee dadku way iswada nadiifin doonaan marka taana dawladda dhexena aad baan ugu baraarujin lahaa dadweynaha faraha badana yimidna aad baa u mahadsan tihiin waana casnima inay dadku hay-ad ka sugaan gaala ah oo yurub ka timid inay halkan u xaadho waana casnimo in xashiishka la xaadho oo wax la hagaajiyaa ma aha daciifnimo ma aha qofku inuu ku dulloobayo anugu waddamada yurub mid ka mida baan maray qaar badan waan maray laakiin mid ka mida waa waxaan arkay nimankii caddaanka ahaa oo baabuurkan xashiishka dabada haysta waddanka dheermark la yidhaahdaa buu ahaa magaalo ka mida caasimadiisa copenhagen markaa waxaan idha oo dadka madmadow miyaanay u diranin xashiishka kuwii dhaladka ahaa ee caddaanka ahaabaa baabuurkii dee cabbaynaya hareeraha haystee marka waxay idhaahdeen waaba lagu abtirsadaayoo waa la kala dhaxlaa booskan dadka dhaladka ahunbaaba xashiishka xaadha bay idhaah dadka ajinabiga ah lagumama aaminaba laba meelood midna kuma aaminaan bay idhaah in xashiishkaa la xaadho iyo in beeraha loo diro beerihiina waa meel la iska sunayn karo xashiishkanna halkii lagu sunoobayey dadka dhaladka ahbaa kudaafaddana ka shaqeeya bay idhah oo kala dhaxlaba lamaba kala helaba inta dhakhtarka in laeg buu qaataa ninkaa xashiishka xaadhaya beerahana waa saasoo kale marka aqaafaddeenna iyo aragtideenna waa inay kor noqoto waxaan hadalka u badiyey arrintani waa arrin xasaasiya mana mudna inaynu ayaama uun sidii caatifaddeennu ahayd soo kaakacnee waxaan waa in la joogteeyaa oo tallaabo laga qaadaa qofka gaadhigaa saari waayey ee maaragtay halkan ku soo shubaya waxaan aad ula yaabaa oo aan hore u jiri jirin roobku markuu da'o waxaad arkaysaa xaafadihii oo dhan baa waxay ku soo wada tuurayaan kudaafaddii daadkii baa dulundulcaynayo soconayo jawaanno xashiisha buu wataa goordhowna waddada ku hadhaya marka waa ceeb weeye qofkii inuu biyihii wax nadiifinayo daadkii soo raaciyo marka meelaha buulal yaryartaa ee xashiishka laga soo qaada gaadhiga marka loo geeyo qofka saari waaya dee ciqaab buu yeelanayaa marka dhammaantiin aad baa u mahadsan tihiin madaxduna way mahadsan yihiin waana inuu ka wada qayb qaadanayna waana in la joogteeyo ilaa dooxaasi uu noqon karo meel lagu shiro aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu